aynu ku horeyno wararka ka imaanaya magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug Soomaaliya. xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen isla markaasina lagu maamuusay calaamasaarka madaxweynaha dhawaan loo doortay maamulka Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado. haddaba xafladaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xukuumadda ama dawladda dhexe oo ku jiro madaxweynaha dalka iyo waliba wafti ka socda beesha caalamka ururka midowga Afrika iyo waliba qaybo badan oo iyagu xiiseeya siyaasadda Soomaaliya ayaa si guud uga qabsoontay magaalada Cadaado. warbixin arrintaasi la xiriirta waxa eegaya wariye Daahir Faarax oo isagu inta badan ka soo warrama arrimaha ugu dambeeya la xiriira maamulka Galmudug. munaasabadda caleemasaarka hoggaanka sare ee maamulka Galmudug oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xubno ka tirsan labada gole ee dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka iyo wakiilo ka socda caalamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. munaasabadda lagu caleemasaarayay hoggaanka sare ee maamulka Galmudug waxa sidoo kale ka soo qayb galay mas'uuliyiintii hore ee maamulada Galmudug iyo Xubin iyo Xeeb iyo marti sharaf kale. ugu horeyn munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Cabdi waxa ka hadlay madaxdii hore ee maamulada Xubin iyo Xeeb iyo Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex waxaana ay ka sheekeeyeen xilliyadii kala duwanaa oo ay soo mareen maamulada ay hogaaminayeen iyagoo sheegay in loo baahan yahay in maamulka Galmudug ee la balaariyay la si ambaqaado howlihiisa shaqo. madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Cabdi ee maanta lagu caleemasaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo dhankooda la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen inay ku dadaali doonaan nabadeynta labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud iyo socodsiinta howlaha horyaal. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qodbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madasha lagu caleemasaarayay madaxda sare ee maamulka Galmudug waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay garab ka siinayso hoggaanka cusub ee Galmudug sidii wadahadal loogu xalli lahaa ahlu sunna wal jamaa oo iminka ka arimiya qaybo kamid ah Galmudug. waxaana sidoo kale madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu hambalyeeyay madaxda cusub ee Galmudug oo maanta lagu caleemasaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. ahlu sunna wal jamaa aad looga hadlay Soomaaliya ajnabiga maanta wixii halkan ka hadleen annaguna codkaas aan ku darina waa dad aad muhiim u ah waxay muhiim u yihiin gobolada waxay muhiim u yihiin dawladnimada Soomaaliya waxay muhiim u yihiin diinta Islaamka waa dadka mar Soomaalida inteeda badan mar shabaabku uu dhibaato inta gaarsiiyay hoos loo wada rogmaday dadkii istaaga oo yiri maya ma ogolin fikirkan takfiiriga ah waa diidanahay waana dhiigeena u bixinayna dhiigoodana ku bixiyay ahaayeen waxay leeyihiin xushmadaas iyo karaamadaas wixii isfaham darro ah ee jira waa la xallina meeshana way ka baxayaan maamulkana waa maamulkoodii maamulan ahayn ma qabaan deegaanka waa deegaankoodii waa deegaankii shalay u dhinteen waa deegaankii maanta wali u taagan yihiin wax allaala iyo wixii ay dhibsadeen waa lagala fadhiisanaya waana lagala xaalayaa waxa ay leeyihiin maqaamka iyo mansabka ay leeyihiin waa la xaqiijinaya. mar kale waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha dawladda Galmudug waxaan hambalyeynayaa gudoomiyaha baarlamaanka waxaan hambalyeynaa madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo baarlamaanka waxaan hambalyeynayaa bogaadinayaa odayaashii Soomaaliyeed ee u soo dhabar adeegay ee keenay guushan iyo sababtan waxaan u hambalyeynayaa qabaa'ilka deegaankan degan beelaha kala duwan ee ku heshiiyay inay maamulkan sameystaan raallina ka noqday suura kaasina dadkoodii si ay hal talo oo midaysan oo aan reerkoodii kaliya aan ahayn ay u yeeshaan aad ayaan ugu hambalyeynayaa waana bogaadinayaa. Daahir Faarax Ahmed TV-ga Kalsan Cadaado.